بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaan ka galaynaa tamriinaat luqati alcarabi fi safi alawal الثانوي layliyaasha luqadda carabiga ee galaaska koobaad ee dugsi sare alwuxdatu الثالث cutubka saddexaad الدرس الأول cashirka koobaad bani watani oo ku bilaabanayay layliyaashiisii iyo su-aalihiisii ayaan halkan ka qorayn kan soo bandhigayna hadduu ilaahay idmo aan ku sheegi doonaa intaan guda galin marka dadka akhyaarta ah oo dhageysanayo oo ku tixaan cashirkan dugsiga sare fasalka koobaad waxaan ka codsanaynaa inay subscribe kuwa cusub noo saaraan kuwa dhageysanaya oo cusub like-tana noo saaraan hadduu ilaahay kuwa ka hore ku tixnaan ayagana like-tana noo saaraan gambaleelkana u furtaan hadduu ilaahay idmo si uu soo gaaro cashirada dambe annaga aan soo wadno hadduu ilaahay idmo aan ugu dhiirano cashirkeedina halkaas ku sii wadno hadduu ilaahay idmo إن شاء الله وسان يرجعنا هذا العشر كنا قد قلنا هذول إدمه نشاط الله التعبير الشفهي إن شاء الله وحقبت كلمات حويا التعبير عرس الشفهي حق حق عرس أفكار السكاشة ومعلم وكو دينا أرضية سو جوبت جوجا كو إلى من وجه الشاعر شاعر كي يؤتي خطابه ورادي في هذه القصيدة قصيدة يؤتي أو لها اللي حلنا وحول يؤتي وهاللي أبناء الصومال بعلنا أبناء الصومال ويش الصوماليات وهذا لنا هاي وجدي وحلنا هاي وذكر شيء نمبر لبا بعض ما يملكه الوطن قيب كم إذا وطن كوليه هاي من خلال قصيدة أنتو كذا شري وحكوا شيء وطن كوليه هاي وخيراته إن الشيء كذا الربع قيب كم إذا وكان قيبه كشيء قصيدة دحيدة التبر وذهب كشيء والزيت شدال الودن كليه كشيء والدر جوهرة صدح ماذا قال الشاعر قبياغ محكير عن أضرار الاستعمار قوم يستهد باتوين كيسة في الوطن وكوهي وكان الشعر كان كشيء وأيتم أطفالا وأجرى دماءنا وودد ركن الجهل والجهل أخضر وأيتم حقوق أنتم قوم يستهد أطفال عيال وأجراء ودريري دماءنا ديك الصومالي يودريري دماء الصومال يودريري ودادي وودد وحو أتكيد ركن الجهل جاهل ماذا كتير كذا هو أتكي ولو جهل الجاهل ماذا أخطر أيضا خطر بدن أفر ماذا نادى الشاعر يقول واقع في قصيدة وكان بيت كانوا كل واقع ينادي ويريا بإنشاء المدارس سكول إلا دسويه يلا وحلو برتو ليتني إن شاء الله يتدي أراهدا أركلها بير بذرة الآمال ديلة أبور كذا تنمو أيضا زيادة سوى تثمر من رب حين يصدق أركلها بير وحير نمبرشان في أي بيت كيبو عبد الشاعر وكموتي خيبة الأمل رجحمه وكان بيت كان رجحمه كموتي وحير أنادي فلا يجدي النداء سوى الحزن ومن جميع الأحزان يستورد الجمر وأن رواق يابي وحوم التريبي رواق سوى الحزن مرغمو يعني ومن جميل أحزانه مرغيده ماشى laga soo dhanbasho yaa yustawradu waxa laga keenay aljamru dhuxulaha waaweyn dhamacdaha meeshii murugada ka timaada ayaa laga keenay nashaa thalath waxa qabadka saddexaad nasilu waan xiriirinaa kalimada eraygan fi qaa'imati alif ku sugan groupka alif ku sugan waxaan ku xiriirinaa bima yunaasiba wa munaasaba fi qaa'imati ba number ahaan baa ugu xiriirinaa alqaa'ima waa faylka group ku jiro arabdu number ahaan baa ugu xiriirinaa meeshaas dhaxda ah xisaabta ayaan u geynaa numberka lamid ah alqaa'imatu ba ku jiro faylka ba ku jiro waa kana alif falaa yanfacu waxaan u geynaynaa numberkaas oo halka uu hooseeyo numberkooda falaa yujdi ayuu leeyahay tharwa number 2 waxaan u geynaynaa tharawaat waxaan u geynaynaa numberkaas khayraat ku aadan ayaan u geynaynaa number 2 saddex alqidcatu min an-naari waxaan geynaynaa aljamru dhuxush afar cadamu samci maqlaan waxaan geynaynaa number 4 oo ah as-sammu dhagalaan number 5 athiqlu oo culays ah athiqlu culays fi samci ahaada waxaan geynaynaa alwaqru culayska qofka jigan baa leeyahay athiqli oo kor in loo qaado mooyaan ha maqleen samigana ma maqal iska dhaaf maanta hadii mikrofon loo qaadanayo ma maqlayaba waxa weyn dhagalaan buu ku dhashay labadaas farqi baa u dhaxeeya marka waxaan niri nashaad 4 waxqabadka afraad nastacmilu الكلمات الآتية ayaan soo isticmaalaynaa fi jumalin erayo min cindina agtanada ah yahtif fa meesha ku qoran yahtifu waxaan leenahay yahtifuna way dhawaaqayaan matal fajr goormuu waagu baraya number 2 lamaca ayaa ku jiray meesha waxaan ku dareynaa eray faa'iido leh waxaan leenahay lamaca waxa iftiimay alkanzu kaydkii ayaa iftiimay 4 alwaqru ayaa meesha ku qoran waxaan leenahay
waqara waxaa cuslaaday udunahu dhagihiisa ayaa cuslaataa leeyahay waqara waxaa cuslaaday udunahu dhagihiisa. afar alghaniima ayaa meesha ku jirta waxaan leenahay jumlo faa'iidaan gelinaynaa anna bil ardi dhulka waxaa ku sugan ghaniimatun ghaniima ayaa ku sugan aan leenahay. number 5 badratun baan aragnay badratun waxaa laga wadaa jumlo faa'iidaan gelinaynaa araan waa arkaynaa badratal aamaali diilada abuurkeeda tanmuu in ziyaadayso. nashaad 5 wax qabadka shanaad naati bima yudaadu alkalimaat alaatiya waxaan la imaanaynaa ereyada ka soo horjeeda ayaan la imaanaynaa. alkalimatu didaha waa kana waxaa ka hooseeya alxusnu murugo waxaa didka ah alfarax murugo waxaa ka soo horjeeda farax. faqiiratun waxaa ka soo horjeeda alghani. alasam waxaa ka soo horjeeda dhagal-aan ah asamcu maqal. qismun barwaaqo waxaa ka soo horjeeda jafaaf oo abaar iyo qalayl ah. siran waxa weeyaan hoos jahranna waxa weeyaan waa muuqasho. nashaad 6 waxa weeyaan naqra'u nas 10 ayaan akhrineynaa tuma nastakrij waxaan ka soo bixinaynaa min ma yaati waxaan soo socda 10 ereyada ku jiray waxaan ka soo bixinaynaa ereyadan laga rabaa. alif isman magac waa laga rabaa min asmaa'il asad magac kamid ah magacyada libaax waa kana allayth ayaa shicirka ku jiray. ba ficlan yadullu ficil baa la rabaa ku tusinaya calaa sawti xayawaanin cod xayawaan ficil ku tusinaya yaa laga rabaa waa kana yaz'aru ayuu ahaa ficilka ku jiray oo ku tusinaya codka xayawaanka loo isticmaalo libaax codkiisa oo guuxaya waxaa la yiraahdaa yaz'aru waa mid dhawaaqayo hiraagaya camal. albaytu wuxuu ku leeyahay waxaan soo galaynaa jiim waxaa laga rabaa 3 jumuucin taksiirin 3 jamc taksiir laga rabaa oo shicirka ku jiray. lawaamicu ayaa ku jiray oo ahaa iftiimyaalo axzaan oo number waxa ku jiray numberka aysan murugooyin ah oo kan labaad ah kan saddexaad oo laga rabo jamca waxa way atfaal ciyaal ku jira 10. deel albayt sheeg alladii baytkaasoo acjabaka ku cajab galiye sheeg maca dikri sabab adoo sababta sheegayo baytka ku cajab galiye aniga kana soo qaatay cajab galiyay anoo sababta sheegay waa itama atfaalan ciyaal buu agoontameeyay waa jira dimaana ayuu dhiiganaga ayuu daadiyay guumeystaha oo wadada uu adkeeyay rugnal jaahilnimada rugnigeeda ayuu adkeeyay wal jahlu jaahilnimada akhtar ayaba khatar badanba jaahilnimada ayaa ka khatar badan agoonta la laayay dhiiga la daadinayay ku leeyahay. alcajab waxa weeyaan ku leeyahay cajabtu oo meesha ku jirta kayfa jacala atfaal suu ciyaalka uga dhigay taaman agoon waa ajraa u diyaari oo dareeriyay oo daadiyay dimaa Soomaaliyiin Soomaalida dhiigoodana uu daadiyay oo cabay. nashaad waxaan galaynaa 7 naktubul bayt alaati baytkan ayaan qoraynaa nathran waxaan qoraynaa tiraab ahaan baa qoraynaa shicir buu hadda u qoran yahay tixaan buu qoran yahay waa kana bani wadani inal bilad faqiratun bifaqd rijal alilm wal ilm nayiru yaxuleeya waa kana markii haduu ilaahay ku samay ogol yahay aan ka dhigayno erey bahal aan ka dhigayno nathri ka dhigayno tiraab waa kana yaa abna Soomaal wiilasha Soomaaliyeed inal bilad wadanka faqiratun mid baahan waaye bi qasaaro ayay u baahan tahay rijaal cilmi rag cilmigiisa ku qasaarowday wuxuu ku leeyahay wal ilmu nayiru cilmiguna mid iftiimaya baladku faqiir ayuu noqday ku yiri inal bilad wadanka faqiir ayuu noqday muxuu faqiir ku noqday bi qasaarada rijaal cilmi rag cilmiga ah oo ku qasaaray weeyo uusan haysanin wal ilmu cilmigana nayirun waa mid iftiimaya. halkan waxaan galaynaa taqwiimu darsi 10 qiimeynteeda لنتأكد صاحبه من إجابة جوابت عن أسئلة التقويم الآتي وكنا نمبر 2 لمن قصيدة بني وطنية إسكاله قصيدة بني وطنية عليه وقميسي كهالله أستاذ وحاسكاله معلن كالإلهة عمر محمد عبد الرحمن شاعر صومالي وشاعر قبياء صوماليا وين كان وشعر كثير بني وطني لابو حدد قرض قصيدة وجدك الشيك قصيدة وجدك وحوي السير اللي وصعد في طريق التحرر إن لغو حروبه ودده والتقدم هرمر بكهاليسا والعمل الشقي كهاليسا قصيدة قرد كده ومحاربة الكسل وهسيدة يشغلانتن إلى الدجالمو أي كهاليسا قصيدة قرد كده جد كده ساسواي. صدح ما هي ثروات خيراتكم حويها هي أرض الصومال خيرات كده محويها في وجهة النظر الشاعري فكر كما كأضو فيرنا شاعر كفكر كيس وكان أصوب حول خيراتك الصومالي وحكو شيء وهو في جوفها وحكو سوغن بزيتون سليد أما الشدال وفي بحرها بدأ وحكو سوغن الضر الجوهر وفي تربها عيدين وحكو جرى تبر ذهب. عفر إلى من وجه الشاعر شاعرك يوجه خطابه ورهديس إلى أمة الصومال أي يوجه لنا هي أمة الصومال. والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء الآخر.